السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة بدن ku xiran channelka Amin Technology isu soo noqdo wanaagsan insha Allah ta'ala maanta waxaynu qaadan doonaa cashirkii 11aad ee ku baranay database-ka qaasatan luqadda SQL. Cashirkii hore waxaan ugu soo baranay oo ku soo dhameynay constraint-yada dhammaan constraint-yada oo soo baranay balse waxaynu ku dabaqaynay table cusub ayaynu ku sameeynay balse hadda table hore u sameysnay sidee baa ugu dabaqaa constraints إن شاء الله تعالى ما تعشر كائن وحكساب سردنا عوان كاس فضلنا هدان وعصوب تهاي نوصو بيرو جناك سبسكرايب نصار مركو هريتو إنو سلسو آخرنا تيبل كهور نوغ سميسناي تيبل كهور نوغ سميسنا وحالو مقاعو student zero سيو جيدين با تيبل كان وحا نوغ جرو إلا أردي طوان أردي نوغ جرتو بلسي كولم كان ID4 أردي قاوتو نصرو حسن عالي كولم كان دريس كيدا ميسن بوحين واكتكتي sidoo kale meeshan waxa ku jirto arday isku number ah oo laba arday isla wada hal number waxaynu baran doonaa insha Allah ta'ala table-ka noo sameeysan dhammaan constraint hore u soo baranay si loo soo dabaqo table-kan waxaan hore soo baranay dhammaan constraint-yada balse table cusub ayaan u sameeynayna balse database haysa database campaign ama database jaamacada haysa waxa u baahan tahay oo kaliya hal constraint ku soo dirtay ama laba constraint Allah constraint ka u baahan tahay sidee baa u sirsan doontaa maanta aynu isla arki doonaa insha Allah aynu isla socono marka hore waxaynu dhihi doonaa alter markaanu dhahno table kadib table-ka aanu constraint ku soo dirayna magaciisa aynu sheegi doonaa table-kan waxa lagu magacaabaa student 0 marka dhan waxaan dhihi doonaa add ku soo dar maxaan ku soo darayaa constraint ku soo dar constraint ku soo dar markaan dhahno waxaynu sheegi doonaa constraint aan ku soo darsan doono hadda waxaynu ku soo diri doonaa column-ka lagu magacaabo student address waxaan dhihi doonaa qofka hadduu ka tago address-kiisa si default waxaad u siisaa qiimahaas intaan constraint magaciisa aadan sheegin waxaa laga rabaa inaad u bixiyo magaca constraint-ka laal hadda u baahatid magacaad ku daladiiranayd ama ku darjigalanayd u bixi hadda waxaan dhihi doonaa constraint 1 magaca markaan u bixino waxaan dhihi doonaa constraint aan ku soo diri doonaa magaciisa ayaan sheegi doonaa hadda constraint aan ku soo diri doonaa waxa lagu magacaabaa default markaan dhahno qiimaha uu yeelan lahayo ayaan sheegi doonaa string ayaan ku dhigi doonaa yaqshid markaanu siino default qiimaha uu yeelan lahayo kadib waxaan dhihi doonaa for kadib column-ka aad doonaysid ina constraints kala geliyo ayaan sheegi doontaa hadda column-ka aynu u baahanahay inaan constraint ku dabaqno waxa loo magacaabaa student address kadib waxaan dhihi doonaa student address kadib execute gare soo jeedi baa lagu dabaqay constraint table-kani aynu soo aragno hadda waxaynu isku dayi doonaa inaanu qiimaha ka tagno markaanu qiimaha ka tagno waxa la rabaa si default inuu siiyo qiimaha yaqshid waxaanu soo geli doonaa by query hore ayaan u soo baranay waxaan dhihi doonaa insert waxay soo gelidaa table insert into kadib table-ka magaciisa sheeg waxaynu soo gelinaynaa koloma qaas ayaynu soo geli doonaa student name ka student ID kadib student name brackets ayaynu ka dhigi doonaa kadib student age intaan ayaan rabnaa qiimo soo gelina kadib waxaan dhihi doonaa values qiimaha ay soo geli qiimaha la soo gelina ayaynu sheegi doonaa waxaanu sii doonaa ardaygan ID 11 sidoo kale magaciisa waxaanu ka dhigi doonaa Ali bis ayaan ka dhigi doonaa in waqti uu dhamaado doonayno waxaynu ka sii dhigi doonaa age-kiisa 33 intaan markaan isku gareyno hadda muhiimadeyna waxa waa in address-ka default noo sheeg yaqshid address anaga hadda ma aan siin kaliya waxaan siin student ID iyo student name iyo sidoo kale student age ayaan siinay ma aan siinin address-ka waxa la rabaa si default inuu noo siiyo yaqshid aynu isku gareyno warro affected kadib table-kan aynu soo akhrisan doonaa soo jeedi ardaygan ugu dambeeyo aan idin soo dhaweey wax yar
ardaygan ugu dambeeyo ID 11 cali 32 si default ah asaga wuxuu u siiyay Yaaqshid. waxayna dal isku dii doonaa inaan constraint kala ku darno constraint dhammaan sidaan ay ugu diri doontaa. waxaa dhigi doontaa alter kadib table kaad constraint ku diri sheeg kadib add igu soo dar dheh maxaa kugu soo daraa ku dhigaya kadib waxaa dhigi doonaa constraint ku dar constraint kan magac u bixi magacan wuxuu iga caawinayaa in aan hadhow delete credit karo constraint kaas kadib constraint ku dari sida default ama unique ama tel constraint ka gaashaa kadib qiimasi table kan sheeg column ka sheeg constraint dhammaan waa isku mid sidaan ayaa ugu soo darsan kartaa. hadda ma doonayna marka waqti badan soo lumino maxaa yeelay constraint dhammaan hore ayaa table ugu soo baratigareynay kaliya hadda waxaanu ku tusayaa table ku diyaarsan sida aad constraint kale ugu soo darsan kartid insha Allah ta'ala marka cashirkaana maanta inta aynu ogyahay. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.